horta wax cusub maaha oo qadiyadan Somaliland-nimadu waa wax 30 sano soo socotay aan ku soo ababnay carruurteedii imika anagu aan ku dhalnaynaa ay ku ababi doonto intuu jiray baan dhasho dhalaan baan ahay ku koray cidiyo dhulka hooya oo calankan dhaayaha ku furay baldugo gurigaada gashaba intii kaga dhimatay tiri reeraan dhowr kaga maqnayn dhifiyo weeyaan amama xusiyo maydaan dhignaa dhambaaliyo waa xasuus shacbiga reer Somaliland waxaan leeyahay waxay noo ballanaa dalmida iyo dadmida muhiimaduna waa nabadda dal jacaylka lagu sheegaya afka iyo ficilada samaysan maaha qalbigu ka yimaada moogtay anu Somaliland calanka garabkayga suran ayaan ku hoos dhashay oon ku caqliyeystay oon wax ku bartay oon ku soo baxay oo la igu taageeray oon wax ku noqday intaasoo dhan anoo ku ah haddii aan qarankayga jacaylkiisa muujin waayo anay ceeb igu tahay qarankayga waan garab taaganahay hiil iyo hoobo waan garab taaganahay أنا هذا البدن أولين هذا الكيك سوكوبيا مركب كوبد الله سبحانه وتعالى أي ما هذا سجناتي هل كان واحد كاس سلامنا مدحت ذلك شعب كذلك إيوه سلوك على قرن كينا إيوه اللي بعيدنك هبين إيوه مالين بأوتاجن إلى لينتا نفاها يقع بيلودو أد بد ما تنتهي أد بنقوم هذا إلنا قرن كيجا مدحضة شعبك يعيدنك انتبه اللي يردنا وحليه هي دلشعيلك يدلشعيلك يسكت بنام دلشعيلك يدلشعيلك يقرن شعيلك ولي بواجب نقاه
يسوع سيرادي سيدنا كل لوي maxaad kala baqtinaysan maxaa baqti waa xabaway maxaa toojlay haween fanaanadu sidoo qarankooda u jecel yihiin in bayaguna dadkooda u jecel yihiin inay jacaylka dalkooda ay jecel yihiin ee ku waajibka in ka badan ayagana maxay tolay la jecel yahay shacbiga reer Soomaaliland waxaan leeyahay waxaanoo ballanaa dalmida iyo dadmida muhiimaduna waa nabadda marka waxaan horta wax cusub maaha oo qadiyadan Soomaaliland darnimadu waa wax 30 sano de soo socotay aan ku soo ababnay carruurteedii imika anagu aan ku dhalnayna ay ku ababi doonto haduu kaga jira waxa weeye TikToker ku bulshada ma fanaanba ma wariya maxay ugu yeedhnaa wixiiba uu koobsanaya TikToker-ku wixiiba uu koobsanaya ayo TikTok waa application ka imika dadka dhamaantii ay wada isticmaalaan warbaahintii baa joogta fanaaniintii baa joogta siyaasiyiintii baa joogta dhalinyaradii baa joogta shuyuukhdii baa joogta cid ka maqani ma jirto marka de TikTok anigu wuxuu baan u aqaanaayeen wax dhamaan TikToker-ku marka uu qabanayo munaasabad ee dal intuu tago ama magaalo tago uu show qabanayo show waxa ku naqaan fanaan hebel baa show loo qabanaya showga muxuu isagu qabanaya show horta waxa laga yaabaa bayloodo in adigu waa fiidiyoyadii dambe showgu markii uu dhacay kadib uu la kulantay oo aad aragtay xafladda fanaaniin baa joogtay ka heesaysay walaalkii Maxamed Roomi iyo Cadnaan Saalax oo kale ay kamid yihiin bay ka ahay laakiin aad ugu qabtay munaasabada anigu aan abaabule aan ahaada bandulaha xafladda oo bilowgii aniga hayga timaado fikradu laakiin wax aniga kaligeeygu koobnaa ma aha asxaab badan oo fanaaniin ahayn oo magaranaysa ay cameraman aha wax badan aha wadii dhabarkayga riixayay baa jiray oo hawsheegu la jiray xafladuna xaflad qadiyadeed un bay ahayd emeeheen xaflad TikToker iyo xaflad fanaantoona Soomaaliya isku waajahdeen halka waxa weeye qadiyad ahaan ka hadlay marka Soomaaliya ilaahay dawladda ismeed arag laakiin shacabkii Soomaaliya iyo dawladda federaalka taageersanaa ayaa waxa weeye isku waajahdeen Germany balka waran xamaasadda marka halka la joogo Germany dhinaca qadiyadaha dadka aadka ugu ololeeyay qayb weyn ka tahay bal hadda warbixin laga sii horta xafladaas ma yahayn xafladeena aanu isku hayno dawlad Soomaaliyeed iyo dawlad federaaliyana toona wuxuu bay ahayd in xaflad nin fanaan ahaa oo markaa ku gafay jamhuuriyadeena uu yimi Jarmalka kadib showgiisu waxba ka socon waayeen oo baan ku dhignayo aanu halkana markii hore nin ilka casal yiraahdo waa ilka casal ninka la yiraahdo qays fanaanka ilka casal qays la yiraahdo oo noo yimi oo 2020 hadaan khaldanin mar noo yimi ilaa godad ka soo baxaba may ninkaas waa nin kale oo markii dambe hiil ahaan isaga uu soo raacay oo sheekay qabiil ugu hiilinayay waana ninka hawsheedu ay fogaatay codkaas aad baraha bulshada u galay godadka ka soo baxa godadka aad marka baraha bulshada joogana oo codad loo isticmaalo codkaas sidoo ku yimi codkaasi wuxuu ku yimi habeen xafladuhu horta isku hal habeen bay dhacayeen labada xafladood marka kulli xafladii wiilka kale uu qaban qaabinayay ee geegan taylka nagu ahayd anaga naga soo horjeeday ayaa kulli waqtigii loogu talagalay in dadku ku yimaadaan bi ku yimaadaan waayeen qiyaastii kadib dadkii way yara kala dhunteen saan filayo dadkii way yara kala dhunteen xamaasad baa jirtay halkii anaga taayadu ay 9kii habeenimo ka daarnayd ee dadku dibadda xataa ay taxnaayeen ayaa halka kale 12kii habeenimo cidina ku soo dhiiran weydeen barxadii la yimaado 10kii qof yimid oo kale saasi kelmadan godadku ku timi godadka soo baxa marka waa xaflada soo camira waa xaflada macnaheedu intee kaalaya kamaradu hayeen ku dhacday xafladii kale way socotaa hayna la duubay kaalay horta dal jacaylka lagu sheegaya afka iyo ficilada samaysan maaha qalbigu ka yimaada moogtay anu Soomaaliland calanka garabkayga suran ayaan ku hoos dhashay oo ku aqliyeystay oo wax ku bartay oo ku soo baxay oo la igu taageeray oo wax ku noqday intaas oo dhan anoo ku ah haddii aan qarankayga jacaylkiisa muujin waayo anay ceeb igu tahay qarankayga waan garab taaganahay hiiliyo hoobo waan garab taaganahay ilaahay caafimaadka iyo cimriga iyo maskaxda iyo garaadka dhammaantiinba madaxdeena iyo shacabkeena iyo wax garadkeena ilaahay yaa u barakeeyo aniga maxamed haanteedana anigoo ku hadlay dhalinyarta reer Soomaaliland amba landriska waan garab taaganahay qaranka if iyo aakhiraba qaranka waan garab taaganahay qofka inuu dalkiisa jeclaadana ceeb maaha dalkayga waan jeclahay bari iyo saa dambe saa ku noon jeclaan doona inta nolosheeda ka dhiman saasoo garabkayga sugnaan doona bal heestii eriyo kooban oo waxa weeyaan intuu jiray baan dhasho bal yaro kooban beeri kooban naga maqashay intuu jiray baan dhasho dhalaan baan ahay ku koray cidiyo dhulka hooya oo calankan dhaaya ku furay baldugo
gurigaada gashaba intii kaga dhimatay tiri reeraan dhowr kaga maqnayn dhifiyo weyan ama ma jiro xusiyo maydaan dhignaa dhambaaliyo waa xasuus